af Soomaali ba tiri bogta adigu af Soomaaligu waa tii sidii loogu sheegay weey af Soomaali wax la yiraahdo ayaa la qoray bana la yiri Soomaa laakiin hadda waxa soo baxay wixii ma oran kareen af Soomaali waa inaan raana af maxaatiri iyo af maay qayb ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa waxa u suura gashay isla markaana ay heleen fursad ay kula kulmaan Professor Maxamed Xaaji Muqtaar oo ah aqoonyahan ku xeel dheer taariikhda baranaka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka Professorka oo halkaasi ka jeediyay hadal dhaxalgal ahaa ayaa waxa ka mid ah hadaladiisa midna Soomaalidu anagu waxaan isu haysanaa inaan nahay dad isku isir ah dad isku af ah Soomaa dadka dariskayaga ama dunida kale asxaabtayda iyo foogeyna waxay la yaaban yihiin dadkan isku isirka ah isku afka ah isku diinta isku wax walba ah dadan waxba isu ahayn baa yaani dhaqmaayo oo socdo dawladahoodu u dhisan yihiin war kuwa kan maxaa ka halaabay ya hadiiba sida ay sheegayaan ay run tahay mogtahay wax la heli karaayo ma homogeneity Somalis are homogeneous society wasidina la yiri Soomaa waxa jira heterogeneous societies tan hadda joogtana Australia ka mid tahay Mareykanka aan joogno ka mid tahay dad badan oo kala duwan baa jiro haddana nabadooda qaba laakiin annagii oo sheeganay inaan wax walba inoo dhan yihiin maxaynu uga daalanahay inaan nabad ku noolaano that means marka waa in lagu noqdaa waxyaabihii aan u haysanay inay sax ahaayeen laga yaabay inay u baahan yihiin in la saxo oo ay qalad noqdaan Professor Maxamed Xaaji Muqtaar mar uu ka hadlayay ahmiyadda ay leedahay in la xoojiyo lahjadaha Soomaalida gaar ahaan midda Mayga ayaa waxa uu yiri fiiri af Soomaali ba tiri bogta adigu af Soomaaligu waa tii sidii loogu sheegay weey af Soomaali wax la yiraahdo ayaa la qoray bana la yiri Soomaa laakiin hadda waxa soo baxay wixii ma oran kareen af Soomaali waa inaan raana af maxaatiri iyo af maay laba waynan sidaas u dhawaaqna waayo hadii kale dhibaatada ku gaaraysa waxa talo maayga Soomaali ba maxaad keeba Soomaali af Soomaali oo hadaan iska duubno we have to be very specific marka anigu waxaan dhahayaa af maxaatiri iyo af Soomaali ba hadda jiro oo constitutional ah oo loo baahan yahay inay shaqeeyaan af Soomaaligu markii odayaashii naga horeeyay ay sameynayeen ayagu waxay jeclaayeen wax loo dhan yahay wax loo siman yahay ya markii haddaan yiraahdo Soomaalidu afaf badan bay leedahay waxay ka baqaayeen in aan noqono dad kala qaybsan Soomaaligan waxay isku dayayeen anigu wax walba waa noo dhan yihiin iyadoo aysan run ahayn laakiin ayagu taasay ka eegayeen isku afbaaneen Afrikada kulligood afaf badan bay leeyihiin anaga ma hal baan leenahay dhankaas ayay ka eegayeen Soomaaligan markaasay u bixiyeen af Soomaali unfortunately af maxaatiri weey muddo afkii ma ahayn af maay kuma jirto farti la qoray markaad af 72 74 wax qoraysid maay af Soomaaligu waxa ku jira mesela dhawaaqyo oo afka maayga ku jirin mesela caada ka mid ah in maay doesn't exist waxa ka mid ah ha in maay does حروف الحلق waxa glottal sounds of maay kuma jiro marka qofkii maayga ahaa ereydan maba isticmaalo Soomaali garan ilaa afkiisa kuma jirto dhawaaqiisa kuma jirto hadal jeedintii professorka kadib qaar ka mid ah aqoonyahankii kulan ka soo qayb galay ayaa waxa ay su'aalo weydiiyeen professorka doodii ka dambeysay su'aalaha ayaa waxa ahayd mid aad u firfircoon una xiiso badan waxaana dadka qaarkood ay ka dhiibteen ra'yigooda aqoontii halkaasi uu ku soo bandhigay professorka gabagabadii kulankanna waxaan microphone-ka la dhaxmaray qayb ka mid ah dadkii ka soo qayb galay oo aan weydiiyay ra'yigooda kulankan iyo sidee u arkaan inay la kulmaan professorka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa magaaga oo la raaw Maxamed Aadan Galley ciidanka faraxsana jaalada Australia oo in oo professorka dhakhtarka Maxamed Xaaji Muqtaar in oo magaalada ka dhawaayna anigoo ah Cabdiraxmaan Karoor Cilmi waxaan caawa ka qayb galay xaflad lagu soo dhaweynayo Professor Maxamed Xaaji Muqtaar oo ay ka soo qayb galeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ka kala yimid xaafada aad u dhaadheer
runtii caawa waxaan kororsanay cilmi aad u tiro badan oo ku saabsan taariikhda Soomaaliya anigoo ah Jamiila Nuur Jilay caawa waxaan halkan isugu nimid xaflad ku soo dhaweynta Professor Maxamed Mukhtaar marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aqoon kororsi fiican uu meeshan ka dhacay oo Soomaalida Australia especially Soomaalida Melbourne ay ka soo qayb galeen marka insha Allah waa xafladahan oo kala rajaynaynaa inaan soo badino si da'da yar oo hadda soo koraysa ay uga faa'iideystaan Ibrahim waa mahadsan tahay runtii sharaf bay noo ahayd Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar inaan halkan caawa aan ku soo dhaweyno isla markaasna aanu fursad u helo muxaadaradii qiimaha lahayd ee runtii taariikhda iyo sidaabaha taariikhda maaragtay lagu helo maxaan ku yiraahdaa xogteeda uu halkan ugu wadaagay magacay wali waha Nuur Malaaq Xasan Malaaq Xuseen oo kale inta in koynay Himayl Raay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo Mayl Raay taariikhda Soomaaliya wala ku sheekoyay ma sha Allah arrin faylaha ka gabagabayni hoolan sifaylan in ka dhidi mahad goonay wala inaga Soomaaliya National TV waxaan halkan isku imaanay xaflad oo aqoon kororsi ah oo ku saabsan taariikhda Soomaaliya iyo sooyaalkeedii waqtigii burburkii ka hor xafladaasi waxaa noo qabtay Professor Maxamed Mukhtaar waa xaflad aad u qurux badan ay ahayd aqoon badan laga kororsaday bismillaahir rahmaanir rahiim magacay Mayl Raay Xuseen Xaaji mayba ku mid ahay qaban qaabadii xafladan oo inta ku dhiyaasay oo Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar usahniin ku jeediyay cinwaanka ee turxaan bixinta taariikhda Soomaaliya may aaminsanaha shakhsiyadda marka la kutaba Soomaalida guud ahaan ee Melbourne roogan inay walbadan ku faa'iideen Professorka waana mayning ataha tusaale fayda insha Allah inay una sheekooyinka taariikhda Soomaaliya sheeka ahaan la weydiinay dadkii walbaradi fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bismillaahir rahmaanir rahiim ana Ibrahim Calin magaalada Melbourne maanta waxaan ka soo qaybgalay laguna qabtay xaflad looga hadlayo luqadda Soomaaliga iyo taariikhdeeda aad bay muhiim u tahay runtii in dadku ay ka fikiraan in dadka Soomaalida waxa isku haynaya luqadooda iyo diintooda iyo dhaqankooda intaba la hormariyo lagana fikiro ana lagu talagelin in maartay aad loo sii kala jarjaro aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan ee loo sameeyay Professorka dibadda nooga yimid aanu ku soo dhaweynay magaalada Melbourne isla markaana wax badan aanu ka faa'iideysanay casharo badan iyo taariikhda Soomaalida iyo taariikhda Afrika iyo wax badan inoo faa'iideeyay aad baan ugu faraxsanahay waxayna noo ahayd sharaf weyn ma sha Allah maanta magaalada Melbourne waxa xaflad weyn aanu ugu qabanay Professor Maxamed Mukhtaar oo bara jaamacadeed ka dalka Mareykanka aniga sharaf weyn ayay ahayd inaan ka soo qayb galo sababtoo ah markii aan magaalada caasimadda Malaysia Kuala Lumpur aan jaamacadu aaday 1994 ayaa halkaas ayuu bare jaamacadeed ka ahaa laakiin kuma aanan gaarin marka anaga arday ahaan runtii aad baan ugu faraxnay markii aan ka war helnay in aqoonyahan Soomaaliyeed uu macallin ka ahaa Kuala Lumpur iskumaanan soo gaarin marka wax yar ka hor ayuu ka tagay oo uu dalka Mareykanka u wareegay jaamacad weyn oo Malaysia ku taala oo la yiraahdo UKM oo af Malaysiyaanka lagu yiraahdo University Kebangsaan Malaysia ama Malaysia National University ayuu bara jaamacadeed ka ahaa marka maanta runtii sharaf weyn ayay noo tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Melbourne Australia ku dhaqan in Professor Maxamed aan mar kale halkan xaflad weyn ugu qaban